15 Oktoobar ayaa magaalada Khartoum ee Suudaan waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay agaasimaha wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi oo ay wehelinayeen agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Axmed Faarax Gaatamow iyo agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda Cabdullaahi Haybe. wafdigan oo ku yimid casuumad rasmi ah oo ay dowladda Suudaan u fidisay ayaa waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayaha joogtada ee wasaaradda warfaafinta Suudaan Cabdilmaajid Haaruun, la taliyaha koowaad ee safaaradda Mudane Ibraahim Guure, u qaybsanaha dhanka waxbarashada Mudane Cabdiqaadir Maxamuud Guulane iyo u qaybsanaha dhanka warfaafinta Mudane Fiidow Maxamuud Fiidow, qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan. isla habeenkii xigay booqashadooda ayaa waxaa kulan iswareysi ay la yeesheen diblomaasiyiinta ka shaqeeya safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan iyadoo wafdiga uu ka warbixiyay xaaladda dalka. dhanka kale diblomaasiyiinta ayaa ka warbixiyay xaaladda Soomaalida ee ku nool dalka Suudaan iyo xiriirka labada dal. wafdiga oo kulamo kala duwan la qaadanayay bulshada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayuu sidoo kale kulan la yeeshay saxafiyiinta Soomaaliyeed, madaxa ururada, wakiilada xisbiyada Soomaaliyeed ee dalka iyo jaaliyadda. kulanka oo ahaa mid dood wadaaga ayaa waxaa soo abaabulay xafiiska warfaafinta safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan oo kaashanaya midowga saxafiyiinta Soomaaliyeed. ugu horeyn u qaybsanaha warfaafinta safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan Mudane Fiidow Maxamuud Fiidow ayaa dood wadaaga ku soo dhaweeyay wafdiga. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi, mudane agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan Haybe, agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed Soona Axmed Faarax Maxamed Gaatamow, gudoomiyaha ama xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan golaha salaadiinta Soomaaliyeed, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Suudaan Cabdullaahi Xasan Xuseen Fadilato, xogayaha guud ee ururka dhalinyarada Soomaaliyeed dalka Suudaan Mudane Ishaar Cabdijaliil, dhammaan ru'aasada ay ka socota axsaabta halkan dalka Suudaan ka dhisan, sidoo kale ka socota multaqayaasha rawaabida dhammaan magacyadiina ma awoodina halkan ku soo wada koobo qof u sheego dhammaan halka waxaan amisanahay mudane agaasime halkan jooga inay wada yihiin dhammaantood qof walba oo ka socda inuu matalo xisbi ama uu ka socdo urur uu matalo haddii ay ururada halkan isku xilka ah iyo ururada caadiga ay ahaan lahayd. dhammaantiin waan soo dhaweynayaa habeenkan caawa waxaan halkan idinkugu ballanqaadnay maadaama aanan kulankii weynaay aanan jeclaan ugu qaban karin waqtigu aad u ilahay bal waxaan go'aansanay in nuqbada ama dadka ardayda u horkacda ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan marka la yimaado dadka ugu nashaadka badan ama ugu madaxda ah ama ugu sareysa inaan kulan gaar ah aan la qaataan madaxda ka socota wasaaradda warfaafinta. sababta aan kulankaan idinkugu soo bandhigan waxaa weeyaan in wasaaradda warfaafinta ay tahay meesha gudbisa
sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan Cabdiwali Xasan Xuseen Fadiilatu oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wafdiga u soo jeediyay talooyin ku saabsan dhanka warfaafinta. runtii aniga oo ku hadlayo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan aniga oo ku hadlayo sifadeeda kale oo ah xogayaha qurba-joogta Afrika waxaan aad iyo aad si qalbi wanaagsan oo ku jiro aan ugu soo dhaweynaynaa dalka Suudaan magaalada madaxda ee Khartoum agaasimaha warfaafinta mudane Ustaad Bahlaawi agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Suuna iyo qaybsanaha shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta waxaan leenahay marka koowaad ku soo dhawaada dalkiina labaad runtii Suudaan markaan ka hadlayno annagu ay nooga duwan tahay wadamada kale Suudaan waxay 1990kii markay burburtay Soomaaliya waxay albaabadeeda u furtay ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda sida hadda aan la wada socotaan arday dhowr kun gaarayso ilaa 5,000 gaarayso arday ah oo iskugu jiro wiilal iyo gabdho ayaa wax ka barto maraaxishooda waxbarashadana ay u dhaxayso qaar wax ka barto dugsiyada dhexe iyo sare intooda badan waxay dhigtaan jaamacadaha iyo qaar kale oo wado daraasaadka sare haddii ay noqon lahayd magisterka ama PhD la nuur sida u yaqaan mudane agaasime runtii inta hadda uu bilowday raadiga Muqdisho annaga kama aanan maqnayn haddaan nahay reer Suudaan oo dhalinyaro iclaamiyiin ah oo runtii ayaga u istaagay sida annaga aan ku ogeyn ayadoo markaas ayada ah dacmo dawladeed ay siiso dawlad aysan jirin u qaatay kaamiraad ulana xiriiray wasaaradda warfaafinta ayaa waxay sababtay taa ayada ah in Suudaan oo dhan xaafadaha iyo guryaha iyaga oo dhanba aan gelino TV-ga ku hadla afafka Soomaaliyeed hana ugu badnaada kan inta fara badan aan fiirsado TV-ga qaranka ma haddaas ayada ah runtii waxay u noqonaysaa ustaadka hadda noo fadhiyo ustaad Fiido Maxamuud Fiido iyo tiimka isaga la shaqeynayo Abbas iyo tiimka kale farsamayaqaaniinta Cabdishakuur iyo odayaasha kale dhamaantood la wada shaqeynayo runtii waxay qabteen wax weyn waxaa la yiraahdaa man la yashkuru naas la yashkuru Allah lawla ayaga aysan ahaadeen 5,000 oo arday ah oo Soomaali ah oo jooga wadankan lama aysan qabsadeen xaaladaha iyo maraaxisha ka jiro wadanka intaanan ka bixintan TV-ga taasoo waa naga codsi inaad xooga saartaan wadankan Suudaan sida aan la socono Suudaan waa haddii xafiis sida hadda wararkiinaba looga soo tabiyo wadamada kale inaad ku talagashaan ama ka samaysataan xarun wadankan aad iyo aad u fiicnaan lahayd asbaabo fara badan oo si saaciday taayada ah ayadoo internetkeeda uu yahay mutawafir ayadoo la heli karo team fara badan oo aqoon-yahano ah ayna noqon karto Suudaan meelaha dadka lagu wacyigeliyo taasoo waa iga tala ahaan inaad ku darsataan xisaabaadkiina in dhalinyaro firfircoon oo aqoon-yahano iclaamiyiin ah ay idin joogaan taas markaati waxaan uga noqonaynaa kajaaliyo Soomaaliya haddaan nahay wadankan tan labaad TV-ga waa suldada saddexaad marka telefishinka laga hadlaayo ama iclaamka laga hadlaayaba waa suldada saddexaad waaye marka golaha wasiirada la dhaho baarlamaanka la dhaho suldada kaleeto saddexaad ama afraad waxay noqotaa doorka iclaamka wax sahlan maaha iclaamka waa isku xirka dhan oo Soomaaliya meesha la iskaga xiri karo meesha wacyigelinta laga wacyigelin karo runtii TV-ga qaranka dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya burbur ay ku soo jirtay iyo tiimka hadda say uga shaqeynayaan gudaha runtii horta waa wax weyn marmara dhalinyaro yaryar oo tafatirayaasha meesha ku yar oo warka marka soo deena hadallada qaar meelaha ka mid ah laakiin wadciga lagu jiro maanta Soomaaliya runtii waa u istaageen tan marka loo baahan yahay waxay tahay in aqoon-yahanada aad kaashataan oo la sameeyo kulamo joogto ah ka baxo TV-ga qaranka lagu wacyigeliyo Soomaaliya maanta waxaa naga maqan saddex arrimood saddexdaas hadii la helo runtii wax walba way hagaagayaan waa midnimo iyo sinaan iyo cadaalad haddii TV-ga midnimo iyo sinaan iyo cadaalad aad ka sii daysaan gobollada Soomaaliya oo dhan si isku mid ah aad xafiisyadiina uga wada furataan
aniga waxaan aaminsanahay runtii anuu hadalkaygu soo koobayo meesha keliya ee Soomaaliya laga soo celin karayo cadaaladdan ay ka soo noqon karto waa TV-ga nin qoraa hadda ka hor wuxuu yidhi dowlad laba arrin bay ka hagaagtaa waxay ka hagaagtaa iclaamkeeda iyo ciidankeeda labadaas hadday hagaagaan dowladdaas waa hagaagta waxaan aaminsanahay runtii in adinka haddaaba joogtaanba in wax badan aad horey usoo qabateen bahlaawi waxaan waqti maqlaynay waqtiyada ugu dambeeyay oo dhan waa soo socday intaasoo dhan aad kusoo sabrayseen waxaan filaynaa runtii intaan in ka badan aad kusii sabartaan Soomaaliyana aad meel macquul ah aan gaarsiino waqti kala guuraha lagu jiraa taas ayada ah waa tan hadda annaga aan sugayno aan una soo jeedno in horumarkeeda aan gaarno waan ku mahadsantihiin kun jeerna waxaan idinku soo dhaweynaynaa Suudaan marhaban bikum agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi ayaa u mahad celiyay xubnaha goobta joogay isagoona ka warbixiyay arrimaha safarkooda gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaasha ama hogaamiyaasha xisbiyada hadda halkaan laga tilmaamay oo qaybsanaheena wafdiga martida oo labada agaasima ka mid yihiin waxaan isleeyahay halkaan in odaya fadhiya oo haddaan isleeyahay odayaashii isaga lacaawa ka jooga iyo gabadhaba marka ugu horeysa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caawa inaad halkaan runtii adinkoo waqtigiina iyo duruufaha lagu jiro qiimeynayna inaad caawa halkaan aad casumaad aad iyo aad u qiimo badan aad noo soo gudbisaan oo aad idiin imaano runtii waxaan rabaa haddaan la yidhaahdo inaad 3 qodob aan barnaamijkii ku sareeyo mid waxa weeye midda ugu horeysa runtii dalkan aan walaalahanahay ee Suudaan waa dal annaga aad iyo aad qaali nagu ah waan aaminsanahay inuu yahay dalka eegii labaad waayo markii ugu horreysay oo dalka ay dhibaato ka dhacday waxaan aaminsanahay inuu ahaa dalkii ugu horreeyey ee inta wafdi halkaan ka dira taga Soomaaliya oo yidhaahdo waxaan rabnaa inaanu albaabada u furno dhalinyarada Soomaaliyeed xagga aqoonta iyo waxbarashada waa la socotaan markii ugu horreysay oo dalka burbur ka dhacay waxyaabihii ugu horreeyay baabay waxaa ka mid ah ilihii adeeg oo dhan sida waxbarashadii biyihii korontadii warfaafintii wax kale wixii dalka adeegiisa ah waa waxyaabaha markii ugu horreeyay baabay sidaa daraaddeed waxaan ognahay walaalahayna Suudaan runtii inay ka shaqeeyeen in dad dhalinyaro ka badan 6 inay hadda joogaan waddankan Suudaan ay wax ku baranayaan aad iyo aad baan horta marka ugu horeysa uga mahadinayaa dowladda Suudaan weliba gaar ahaan markaan habeen hore soo degayna waqti 2 barkii habeenimo inay madaxdii wasaaradda iclaamka Suudaan ay garoonka taagnaayeen soo dhaweeyeen runtii taas waxay muujisay lana gelisay diilo iyo kalsooni iyo inaan weliba ku dhiirano inaan waqtigeega aanu si fiican u shaqeyno intaan joogno oo ay ka mid ah inaan adinka caawida aragno marka laga hadlayo marka dhalinyarada saa la socotaan dhalinyaradu waa jiil markay halkaa fadhiya waa rag odayaal oo sii socda waxaan ognahay dhalinyaradu inay yihiin mustaqbalkii waddanka waad ogtihiin dhibaatadii dalka dhacay waxyaabaha ku hoobtay ama dagaalada ku baaba'ay dhalinyaradii ahayd waxaa loo adeegsaday xaabo dabka lagu shito qof yar oo la rabo in wax la baro oo aqoontiisa la koriyo oo la rabo inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u barto runtii waxa weeye dhibaatadii dhacday waxa weeye waxay ahayd dhibaato dhalinyarada intooda badan soo gaaray dhibaato xoogiya goobjoog baan u ahaa anugu runtii waqtigaas waayo waxaan ku jirnay aniga iyo agaasimayaashaan dalkii dalkan way ka bixin oo arkayay dhibaatadii u muuqatay sida wax u dhacayeen marka runtii aad iyo aad intiinaan fursad u heltay inaad halkaan timaadaan oo Suudaan aad timaadaan oo wax barataan yani waxaan aaminsanahay inaad haysataan fursad aad iyo aad qaali ah wada socotaan waddanka marka laga hadlayo isbedelo badan baa jira isbedeladaas dadka saldhigga u ah waa dadka dhalinyarada ah waad ogtahay dalna horumar ma gaaro haddaan dadkiisu aanay wax u qaban oo weliba dadka dhalinyarada ah waad ogtihiin adduunku hadda heerku marayo teknolojiyada waxa sameynaya ama developmentka gaarsiinaya waa dadka dhalinyarada ah marka runtii muddooyinkan dambana
dalka dadka gadaal ugu noqonaya waxay dhalinyaradii suudaan ka soo baxday wada socotaan dalka maamulada hadda ka jira aan ka soo qaado gobolka banaadir oo kale dhalinyarada hadda maamulada haysa oo dhalinyadii ka soo baxay jaamacadaha suudaan runtii waxaad moodaa inay aada u dhisan yihiin marka laga hadlayo xagga akhlaaqiyada xagga aqoonta iyo xagga kobaca maskaxda waxaan runtii aad ugu farxay nin degmo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir war habeen xaflad isugu nimid degmada guddoomiyaha waxaan ku yidhi anaga xafladdan wasaarad ahaan meesha xafladdan ku qabnay waxaa ay ka waray wuxuu waxa ay keenay buu inaan xafladdan kaala qayb galo iyadoo guddoomiyaha gurgeyn yani muhiimadda dalku leeyahay yani kuma talagelin inaan degmo keliya madax ka noqday inaan shaqo kastoo socota aan joogo oo aan wax ka korasho oo aan qofka mas-uulka markaas jooga xafladdaas aan dhegaysto oo wax ka korasho يعني واحد رنتي سؤال ويدي حاجات صعبة على الجامعة السودان ما كان يقول يعني واحد رنتي فرحان مركز يقول وواحد ضلكي والله سقط عنه ضلكو صار لها عندهم مرحلة دي سوي في أناليز نبكي استبعد عن دجالة قبيلة على سومر كوو أو مقارنة إنسان بقى ميكو هاديو على سومر كوو يدمر أو مقارنة إنسان شباب لكن واحد مدار رنتي labadaas ama saddexdaas ugu dambeysay runtii dalku inuu soo kabanayay waxaana taas ugu ahayd fahamka dadku markii hore Soomaali waa taqaanaano beeskii ugu horreeyay wuxuu ahaa dhinaca problemka qabiilka waxaad moodaa marka in hadda dadku ka soo kobcayaan aragtidii ahayd qabiilka oo loo jeesanayo bidixii ahaa war maxaan wada qabsanaa annagoo kooxa annagoo tima maxaan ku kordhinaa waa laga yaabaa dad badan oo يوم كيو أنه سفر كيوغوري بشي مارسو وحان بوضي تلقى تريالي من السويدة وتطبع كاسورهم فكرك تدك دبدا لغا قواي وكدو ولا بدك ماركي غودها لو نوقد sababtu waxa laga yaabaa qaarkood in arkeen dadka dibadaha ka imaanaya inay dalka ku soo kulmaan laakiin waxa ay runtii dad laftigooda dhibaatadii qaxootinimada markay arkeen gartay in dalkooda u baahan yihiin oo qabtaan taasaa keentay marka dhismaha hadda dalka soo qayb ka mid in dadka dibadda ay leeyihiin marka waxaan ku sifayn karnaa xaggii aqoonta dadkii dhalinyarada oo wax bartay oo weliba Suudaan ugu horeeyay inay dalka ku noqdaan oo kordhiyeen dhinacii dhismaha ama ganacsigana dadkii Yurub joogay inay wax kordhiyeen marka halkaas waxaad ka dareemaysaa runtii isbeddel saa la socotaan sanadka 2016 waxaa imaan doona isbeddel xukuumaddu runtii si fiican bay arrintaa uga hadashay baarlamaanka hadduu noqon lahay hadday noqon lahay dowladda inaan waqtigaas sidii loogu diyaargaroobi lahaa laga wada fikro waad ogtihiinoo marka isbedeladu dhacayaan caqabada iska yimaada dal kasta laakiin waxaad moodaa fahamka madaxda Soomaalidu iyo kobcoodu inuu aad u gaaray in waqtiga loogu talagalay isbedelku inuu dhaco inaan waqtina lagu darin waqtina lagu hormarin arrintaas marka waxay noqotay jiddiilo fiican oo dadka mujtamaca oo Soomaaliyeed oo wadankii joogay waxay dareemayaan inay isbedel u dhacayo marka qof walba markaas waxay imaan doontaa inuu taladiisa ra'yigiisa aqoontiisa kartidiisa inuu ku tarsado waxaa dhacaysa inay yiraato in qofku uu yiraahdo halkaa rajo kama jirto waa inaad ka tagtaa meel kale aada taariikhdeedu marka waxay keentay in hadda magaalada Muqdisho iyo dalka dhan looga sheekaysto isbedelada sida u socda wala socotaan xataa barnaamijka gobolada maamulada gobolada dhisay waxay runtii door ka yihiin mustaqbalka Soomaaliya agaasimaha Soona Axmed Faarax Maxamed Gaatamow oo ka hadlayay dood wadaaga ay martida ku ahaayeen wafdiga ka socday wasaaradda warfaafinta ayaa aqoon-yahanada Suudaan ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarka dalka ayna gacan ka geystaan soo kabashada dalka hooyo بعد السلام سيدا agaasimahu hore u sheegay iyo ragii kale ka horeeyay awo waxa farxad weyn noo ah in halkan aad ugu soo dhaweysaan adinkoo ah ardaydii Soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka Suudaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka soo abaabulay xafladan qiimaha badan halkan isugu keenay waxa kale oo u mahadcelinayaa hogaamiyayaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan runtii farxadeena caawa ma soo koobi karo
hadalkiina agaasimaha ayaa hore u dhameeyey laakiin wax yar oo inuu khuseeyo arrinkan rabaa si gaara inaan uga hadlo hadduu ilaah yidhaahdo gaar ahaan ahlu suudaan waxaa kaloo u mahadcelinayaa dowladda suudaan oo ah runtii dalka labaad ama dalkeena hooyo ee labaad ma filaynin marna anoo markaan safarka soo gelaynay soo dhaweyn sidaan la eg iyo qadarin inaan sidaan ula kulmi doono aada iyo aadan ugu mahadcelinaynaa adinkoo ah arday soomaaliyeed waxbarasho u yimid halkan kasoo tegay ehelkiina waalidiintiina qariib ku ah dalkan suudaan oo runtii ah dal aan walaalanahay inaad halkaan ugu soo dhaweysanaad waqtigiina noo soo hortaan qiimo weyn ay noo samaynaysaa laakiin ehelkiina labaad u timideen dhib ma lahan waxaad tihiin dad waxbarasho usoo baxay oo ardadii jaamacadaha gudaha ee xamar wax ku barata ka duwan waxaad wax ku baranaysaan dal nidaam leh dowladnimo ka jirto nidaamka weliba federalismkan hadda ku wareersanahay ku dhaqmo wax badan ayay uga duwantihiin kuwa gudaha dalka wax ku barta runta markii la yidhaahdo leanna cilmiga aad baranayseen tadbiiqiisaad ku jirtiin maalin walba waxaa kaloon aaminsanahay sharafta iyo karaamada dowladda suudaan ay heshay iyo sidoo kale dowladda soomaaliya xiriirka wanaagsan dhex mara inaad qayb ka tihiin ardada ha noqoto kuwii ku horreeyey ama adinka sababta waxaad ogtihiin ardayda iyo dadka isboortiga aado iyo waxaa la yidhahdaa biictaar khayr rasmiya waxay ka turjumaan suuradda dalka haddii maalan aada noqotaan arday qaab daran oo markay wax bartaan gooya ama markay wax baraayaan dhaqan xun soomaaliya o dhan dhaqankaasa laga qaadana haddaad naqatiin dad wanaagsan oo dhaqan fiican oo xushmad lena soomaalida o dhan sidaasay wada noqonay marka qayb ayaad ka tihiin runtii xiriirka wanaagsan waana ku dhiirigelinaya inaad sidaas usii wadaan waxaa kaloo sabab u noqoteen dad badan sanadada u dambeeyey oo dugsiyada sare ardayda markay ka baxaan in xataa dadkii waayeelada ay dhahaan ardagayga wiilkayga waxaa u rabaa suudaan in lagugu diro sababta waxaa waaya aqalka wanaagsan ee lagu arkay ardayda suudaan wax ka barata markay noqdeen dalkay tageen oo ay xil qabteen waxaad arkay dhallinyaradii meel isku balansanayaan way soo imaanayaan hoteelada markaa tagna waxay ahayn gruubka meesha fadhiya waxaa leeyahay reer suudaan malahan qabiil malaha magac kala magaca waa dad isku wada mowqif oo isku xataa kuwaan inta isku soo gaarin qofkaan suudaan wax kasoo bartaa dariira waa soo raadiya dadka kale sidaas ma aha waxaa laga yaabaa waa kala carab xataa isma yaqaanaan marka dad dadka kale ka duwanaa tihiin saameyn weyn ayaana dalka ku leedahay ka wasaarad ahaan waxaan ka rabnaa marka waxaad ogtihiin iclaamku fikirka aqoon-yahanka waxgaradka unbuu gudbiyaa waxaan waa bir ayado iskuma shaqaysto bini aadan ku shaqeyn waxa wanaagsan ee ka baxa waxay ka yimaadaan dadka aqoonta leh annagu waa idin fududaynaynaa meeshaan idin joognaa laakiin dadka aan rabno wacyigelinta inaad nagala qayb qaadataan hadduu ilaah yidhaahdo ummadda wuxu sheegtaan wixii naga qaldan annaga nafteenna aada naga saxdaan waa adinka oo si toosa iyo si aan toosayn intaba aadna soo martiin waxaa kaloo laynka rabaa waxaa laga yaabaa inaad ku fikiraysaan jaamacadda haddaad dhamayso master aad tahay PhD ama baaj waxaad doontid noqo dalka ku noqo shaqa ka raadi waxaa igala haboon inaad ku fikirtaan intaad meesha waa ogtihiin haddaan soo kabsanaynaa wax badanaa naga qaldan nin walba intuu inta baranaa qorshe inuu dejiyo ku saabsan isagu inuu shaqo abuuro dad soomaaliyeed oo dhibaataysan shaqo siiyo group inta isugu leexatay xataa shirkad yar hala sameeyo mid yaroo malay badda kasoo samaysa hala sameeyo wax hala abuuro cod wax ku abuuraya ma jirto ugu horeyn wafdiga ka socday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa booqday goobaha ay u dalxiis tagaan bulshooyinka kala duwan ee soo booqda dalka Suudaan iyagoo booqday ahraamaadka dalka Suudaan.
wafdiga oo si rasmi ah u gudagalay kulamadoodii ay la lahaayeen madaxda dalkan ayaa ugu horeyn booqday xarunta golaha warbaahinta dibadda ee dalka Suudaan. golahan oo ay shaqadiisu tahay ka warhaynta iyo la socodka dhaqdhaqaaqa warbaahinta dibadda ee wax ka qora dalka Suudaan. marwamuun oo agaasimo ka ah golahaasi ayaa uga warbixisay wafdiga qaabka uu u shaqeeyo golahaasi iyo inta xafiis ee uu ka kooban yahay, iyadoo sheegtay in ay dowlad walba muhiim u tahay in ay yeelato xarun la socota saxaafadda dibadda. dhanka kale, wafdiga ayaa uga mahadnaqay sida wanaagsan ee ay uga warbixiyeen shaqada xarunta, iyagoona ku ammaanay shaqada ballaaran oo ay hayso xaruntaasi. wafdiga ayaa sidoo kale kulan la qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda Suudaan, iyadoo ay ka wada hadleen sidii loo hirgelin lahaa heshiis dhex maray labada wasaaradood 2007 iyagoo ka wada hadlay sidii ay u sameyn lahaayeen barnaamij fulineed lagu dhaqangelinayo heshiiskii hore u dhacay. barnaamijkaasi oo fulintiisu uu bilaabmi doono 2016 ayaa xusaya tababaro iyo agab ay isdhaafsanayaan labada dhan. gabagabadii kulanka ayuu agaasimaha wasaaradda warfaafinta Suudaan Cabdilmaajid Haaruun ka warbixiyay sababaha kulankan. عقدنا جلسة مباحثات أولى بين الجانبين وتطرقنا في هذه الموضوعات المشتركة. أصلا توجد اتفاقية تعاون بين السودان والصومال، بين وزارة الإعلام السودانية ووزارة الإعلام الصومالية، موقعة منذ العام 2007. اتفقنا على تجديد هذه الاتفاقية وإعداد برنامج تنفيذي يستجيب لاحتياجات الصومال في هذه المرحلة. ونحن من جانبنا أكدنا إننا على استعداد لتقديم كل العون المطلوب وإعادة تأسيس المؤسسات الإعلامية الصومالية من خلال جدول عمل تنفيذي مشترك في هذه المجالات. سيتم التوقيع عليه إن شاء الله في ختام هذه الزيارة بحضور الأخ الوزير والأخ وزير الدولة. ومن جانبهم الإخوة في الصومال أيضا أكدوا اعتمادهم على السودان في waxaan qabanay kulankeenii ugu horeeyay ee labada wasaaradood ee dowladda Soomaaliya iyo Suudaan ee dhanka warfaafinta, waxaana jiray heshiis ay galeen labada wasaaradood taa oo la saxiixay 2007. waxaana lagu heshiiyey in la cusboonaysiiyo mar kale heshiiskaasi iyo weliba in la dardargeliyo waxyaabihii lagu heshiiyey. dhankeena waxaanu diyaar u nahay in aan wax walba wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ka saacidno. mana noqonayso mid maanta kaliya ku eg ee mar walba waxaan la garab istaagi doonaa inta karaankeena ah oo aanu awoodno in aan dowladda Soomaaliya wax u qaban.
wafdiga ayaa booqasho ku tegay xarumaha ay ku howlgalaan TV-ga iyo raadiyaha dalka Suudaan isagoo la kulmay madaxa xarumahaasi isla markaana shaqaalaha xarumahaasi ay soo bandhigeen qaabka ay u shaqeeyaan. wafdiga ayaa kulan la qaatay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dowladda Suudaan mudane Yaasir Yuusuf Ibraahim hirgelinta heshiiska ay labada dhinac saxiixdeen iyadoo wafdiga ay u soo gudbiyeen wasiiru dowlaha Salaan iyo Mahadnaq ay kaga sideen dhigiisa Soomaaliya. dhanka kale uu wasiiru dowlaha sheegay inay Soomaaliya garab taagan yihiin kana caawin doonaan tababarada saxafiyiinta Soomaaliyeed. wafdiga oo booqashadiisu ahayd mid taxana ah ayaa waxaa xigay oo ay booqdeen jaamacadda caalamiga ee Afrika oo ah midda ugu badan ee ay dhigtaan ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan wax ka barta iyagoo halkaana kulan kula qaad maamulaha jaamacadda Afrika Kamaal Ubayd horena uu ahaa wasiirka warfaafinta Suudaan. kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan iyo diblomaasiyiin kale oo safaaradda ka tirsan.
maamulka jaamacadda ayaa dhankooda ka warbixiyey xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee dhigata jaamacadda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin inay wax baraan ardayda ugu badan ee dalka ka baxa sidoo kale maamulka jaamacadda ayaa sheegay inay dhawaan hirgelin doonaan idaacad FM oo ku hadasha afka Soomaaliga ayna wasaaradda warfaafinta Soomaaliya kaga baahan yihiin garab istaag diyaarna u yihiin inay kulliyadda saxaafadda jaamacadda ku tababaraan saxafiyiinta Soomaaliyeed ayna haystaan studio u fududeyn kara hawsha TV-ga Afrika oo ku hadla luqadaha dalalka Afrika ayuu wafdigu booqasho ku tagay iyagoo la kulmay maamulka TV-ga iyo madaxa qaybta af Soomaaliga iyagoona heshiis dhameystiran halkaas ku soo wada saxiixday dhanka kale wafdiga ayaa booqday akademiyada tababarada saxafiyiinta ee raacsan wasaaradda warfaafinta Suudaan ahna akademiyad caalami ah oo lagu tababaro saxafiyiinta Afrika iyagoo halka kula kulmay maamulka akademiyada isla markaana booqday xarumaha kala duwan ee akademiyadu ka kooban tahay wafdiga oo ka koobnaa 3 xubnood ayaa booqasho ku tagay wakaaladda wararka dalka Suudaan iyadoona agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Mudane Axmed Faarax Gaatamo uu halka kulan kula qaatay dhigiisa Suudaan heshiiska oo goobjoog uu ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayay labada agaasime isku afgarteen heshiis ah sidii ay labada wakaaladood u wada shaqayn lahaayeen isuna dhaafsan lahaayeen tababarada iyo agabka iyadoo kulanka kadib wafdiga la geeyay xarumaha ay ku howlgasho wakaaladda kulanka kadib ayuu agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Mudane Axmed Faarax Gaatamo uu TV-ga qaranka uga warbixiyay qaabka uu heshiiska u dhacay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona iyo wakaaladda wararka dalka Suudaan ee Suuna waxay kala saxiixdeen heshiis taariikhi ah oo ka kooban ilaa 2 iyo 3 heshiiskaas oo runtii waxyaabo badan oo u taraya horumarka wakaaladda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya horumarka wakaaladda iyo guud ahaan warbaahinta Soomaaliya heshiiskaasi wuxuu ka koobnaa ilaa 12 qodob waxaa ku jira in labada wakaaladood ay iska kaashadaan dhinaca isdhaafsiga wararka tababarada sawirrada iyo horumarinta waxaa kale oo ku jira in wakaaladda wararka dalka Suudaan ee Suuna ay wakaaladda wararka Soomaaliyeed
u tababarto saxafiyiin u soo saara wararka waxaa kale oo ku jira inay nagu taageeraan qalab noo fududaynaya howlaheena heshiiskaana runtii wuxuu ahaa heshiis dhaxalgal ah markii ugu horreysay 2017 markii la furay wakaaladda wararka dalka Suudaan waxay soo direen warqad casuumaad oo ay kaga codsanayeen agaasimihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona xilliga inuu ka soo qayb galo xafladii lagu furay wakaaladda annagu markii heshiiskaas taariikhi ah ka amba qaadayna waxaan u cusboonaysiinay soo celinta xiriirkii labada wakaaladood sidaas ayaan heshiiskaas ku dhaqangeli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxyaabo badan ayaan isa kaashay wafdiga ayaa kulan la yeeshay wasiirka warfaafinta dowladda Suudaan Axmed Bilaal Cismaan iyadoo halka ay ku soo wada saxiixdeen barnaamij dhaqan gelinayay heshiis ay labada wasaarood horay u wada saxiixdeen dhanka dowladda Suudaan ayaa barnaamijkan waxa uu saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdilmaajid Haarun Cabdilmaajid iyadoo dhanka Soomaaliya uu saxiixay agaasime Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi dhanka kale agaasimaha ayaa wasiirka u gudbiyay warqad uu ka siiday dhigiisa dowladda Soomaaliya wafdiga ayaa gabagabadii safarkooda waxa ay waraysi toos ah siiyeen TV-ga Blue Nile ee Suudaan iyagoona ka warbixiyay booqashadooda iyo calaaqaadka labada dal allaha u naxariistay Xaliima Khaliif Magool oo kamid ah fanaaniinta heesahooda aadka u jeclaayeen shacabka Suudaan isla markaana loo yaqaanay Xaliima Soomaali ayaa kamid ah heesaha dhextaalka looga dhigay barnaamijka lagu marti qaaday wafdiga iyagoona codsaday in dib loo soo celiyo isdhexgal faneedkii Soomaaliya iyo Suudaan الفنون عندها دور وعندها أثر في العلاقات بين الشعوب. الفنانة حليمة الصومالية زارت السودان كثيرا. حليمة الصومالي اسمها حليمة خليف أمر مغول اسمها الرابع معروفة لدينا أيضا بزيارات وبتواصلها في السودان وإحنا حنستمع الآن لواحدة من الأغنيات السودانية بصوت حليمة الصومالية Sudanese songs by حليمة الصومالية. Okay? نسمع ذلك. Somali, معاك في السالسة
guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinkaaga diyaarinay wafdiga wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ee soo gaaray Suudaan. waxaa soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdiqaadir Socdaal. dhanka farsamada iyo kaamirada waxaa inaga hagayay saaxiibkeen Yuusuf Kashmir. waxaa gacan ka geystay barnaamijkan Cabbaas Maxamed Nuur. waxaa fududeeyay inuu hergalo barnaamijkan xafiiska warfaafinta safaaradda Soomaalida ee Suudaan.